السلام عليكم ورجايس وايدين سلامي فيديوغان wuxuu daba joogaa video maalin labadaan duubnay oo English version ahaa kan waa Somali versionkiisii again anigu waa Dr. Maxamed Xaashi halkan waa xarun ka mid ah xarumaha ka howlgalo magaalada Toronto waliba tan waa Oakville Toronto u dhowdahay marka clientiga meeshan aan ku aragnaa waxay u badan yihiin dad qaba head injury madaxa jug ay kasoo gaartay qaar baabuur la rogmatay qaar shilal si kale u galay kuwa meelo kasoo dhacay marka waxaa loo yaqaanaa concussion loo yaqaanaa ama mild brain traumatic injury loo yaqaanaa marka waa maxaa mild brain traumatic injury waa qof jug ay madaxa kasoo gaartay ama very quick head movement u sameeyay sidaas waaye marka how loo diagnose gareeyo waxa waaye diagnosekoodu waa diagnosis of symptom la yiraahdo waxyaalaha macnaha qofku uu isku arkayo marka ay jug madaxa ka gaarto marka qaar jugtu waxay noqon kartaa mid sanad ka hor dhacday laakiin ilaa maalintii ay dhacday ilaa hadda waxaad dareemaydaa madax xanuun waxaad dareemaydaa wareer waxaadna dul qaadan karin qaylada waxaad dareemaydaa daal badan waxaa hurdadaad isku arkayda inaad saacad ama uga soo kaado amase inaad kaba soo kici weydo iska dheeraato calaamadahaas oo dhan way leedahay calaamadahaas ka sokow anagu markaan exam garaynayno waxaan jeegaraynaa eye movementiga waxa la yiraahdo eye tracking sida indhahooda u move gareeyaan because the most affected ama meesha ugu badan oo ay affect gareyda waa indhaha qofka inuu xataa lightka iyo iftiinka wadkiisa waa dhacaydo oo maanta oo dhan uu sidaas leeyahay oo markuu iftiinka arko qorraxda usoo baxa leerarka iga damiya uu leeyahay xanaaq badan uu isku arkayaa marka mild brain traumatic injury la yiraahdo MRI-ga iyo CT scan-ka iyo markii la saaro waxa complicate ka dhig waxba lagu arki maayo sababtoo ah ma ahan damage oo cellska brainka kusoo gaara maaha waa shock waaye maskaxda dhexdeeda waxay shock ka jiro waaye kabacdina waxay samaydaa waxa la yidhaha energy crisis energygii maskaxda yaraanaya taasaa waxay keenaydaa inuu indhihii si fiican u function garay waayaan in marmarka qaar tear ama ilin uu qofkii u keeno waxyaalahaas oo dhan aa lagu gartaa examka caadiga ah oo physicalkana waxaan ku garanaa eye movementigooda ama waa u dulqaado way hayaan waxaa la yidhahda saccadic eye movementiga video kalaan physical exam ku sharixi doonaa oo way u dulqaado weynayaan ama marmarka qaar motion sensitivity test wax la yirahdaan ku sameynaa oo inay object u move gareeyay la move gareeyaan qofka nooshiu dareemaya inuu matagu dareemaya waxyaalahaas oo dhan waa calaamadaha lagu garto marka intaas examyadaas aan sameyno markaan ogaano inay tahay mild brain traumatic injury ama concussion waxa loo yaqaano inay tahay rehab gooniho loogu talagalay u sameynaa mishimaaya la madaxa iyo gaagalis loogu xiro video kalaan idinku tusi doonaa kii ingiriiska aan maanta dhowga duubnayna waa ku jira mishinkaasu balance training wax la yiraahdaan u sameynaa proprioception wax la yiraahdaan u sameynaa marka trainmada noocaasaan u sameynaa haddaan ogaano inay just sarcogenic headache oo uu yahay oo qoorta iyo waxaas ka imaahayna waa hawl kale iyaduna marka meeshan waa xarumaha ka shaqeeya mid kamida oo aan dadka concussionka qaba ama brain injuryga qaba aan ku aragno hadda waxaan u gudbaynaa videoga qaybtiisa kale waxaan isku dayay inaan summarize gareeyo kii Englishkaan maalin dhaweyd oo more detail ahaayo aan duubnay maalin dhaweyd marka waxaan isku dayaa qaybtiisa kale oo physical examka taas waa symptomskii waxa qofku patientiga uu sheegayo iyo waxa uu isku arka calaamadahaas laakiin as dhakhtar ahaan waxa anagu aan ku aragno marka videoga qaybtiisa kalaan taasna aan nala socosho wanaagsan markan wuxuu daba joogaa videoga hore waa qaybtii oo physical examka u soo gudubnay waxyaalaha aan fiirayna waxaa kamid ah marka koobaad oo aragtaba patientiga oo aragto kasako wuxuu kuu soo sheegay madax xanuunkii wareerkii wuxuu kuu soo sheegay markuu qofku sidan u fadhiyo waxaad fiirinaysaa indhihiisa fiirinaysaa excessive painka wax la yiraahdo miyaa jirto indhuhu saas ugu qabanayaa wax ilena miyaa jirta indhuhu ma guduudan yihiin dhaqdhaqaaqu ma dhibayaa macnaha attention ma ku siinayaa mise waa qofku waa disoriented oo isagoo dhan ugu kala maaragtay hadalladiisii isuguma aadana waxaas qaybtaas oo dhan waxaa la yidhaha observation koraa ka fiirinaysa qaybta labaad waxa waaye waxaad fiirinayda eye movementiga waxa la yidhaha I'll show you this X. So I want you to not move your head, just to move your eyes, okay? Along with this X. هذا وحان instruction عن هذا السين هي ما كان سين في دقائق عنده. سيد كاركتان كصدايا مكتة concussion وحاس ما قبته و just
waa demonstration purposes. caadi indhaheedu si smooth ay u raacraacayaan, si caadi ay ula socdaan. waxyaalahan fiirinaya waxaa ka mid a inay gaari waayaan meesha end range-ga, inay ishu gaari weydo meesha ugu dambayda oo meel dhex ay kasoo laabato, amase abnormal movement inay dhacdo indhuhu saas ay u socdaan. waxyaalahaas aan fiirinayno. Okay, now I'm doing the same but alternating both eyes as fast as you can. midkan waxaa la yihahdaa saccaric eye movement yaa la yihahdaa, si indhuhu ay xoog u wada socdaan, inay same direction u socdaan, speedkooda, inay wax jirto undershoring ah oo aysan meeshii gaareen, inay nastagma samayhayaan ama abnormal movement. waxyaalahaasaan fiirinaya midaasna. marka gabadhan hadda wax concussion ma qabto, waa again waa demonstration waayo, waa sidaan idin tusa qaabkan u test garan. Asha, the last one, I want you to stand up and hold this stick in front of you, focus the P, and then do this. Don't lift your gaze on the P, okay? Very good. Any dizziness? So we know ayada ma qabto sida horeyda kugu sheegay concussion, laakiin qofka concussionka qaba ama mild brain traumatic injury-ga qaba, movementigaas markuu uu sameeyo oo indhuhu iyo jirka dhan move garoobo, wuxuu dareemayaa wareer, uu dareemaya inuu dhaco, dareemaya. marka waa in agtagnet oo qabata ama nooshiyu dareemaya, wala labo iyo matagu dareemaya. waxaa la yihahda motion sensitive test yaa la yihahda. hadda waxaan idin tusayaa qaybta saddexaad, removing the third part, marka oo aan ku tijaabayna computer, aan ku tijaabayna. Okay, nala socosho wanaagsan. qaybta saddexaad. hadda waxaan usoo gudubnay qaybtii VOR-ka ama mashiinka iyo computerka lagu testgareeya. qaybtii macnaha manualka ahayd waa kasoo gudubnay. qaybtan waa qayb aan computer isticmaalayno. software-kan waxaa la yihahdaa Neuroflux aa la yihahdaa. waa software loogu talagalay oo wixii indhaha oo dhaqdhaqaaqooda lagu testgareeyo dhinaca gudihiisa ku jira. baaladan waa gaagal, waxay ku xiran yihiin computerka. mardhow marka waxaa ka arki doontiin indhaheeda, inta ka arki doontiin gabadha indhaheeda, inta ka arki doontiin dhaqdhaqaaqa indhaheedu dhan halkaana kala soconaya. testiyada aan rabo halkaana kasoo fasaxa. marka laba qaybood uu leeyahay, waa qayb training ah oo qaybta trainingka consumin, qaybta trainingka uu leeyahay, iyo qaybta wuxuu leeyahay testingka. marka hadda testingkaan sameynayna. 1 2 3 4 5 6 7 ilaa 8 test ayaa ku jirta. Asha, can you read the instruction? Yes. The target will float around the screen. Follow the dot using your head and eye. Keep the dot in the center of your screen. Okay, why aan weydiiyaa inay akhri karto? because inta badan hair injury-ga qaba akhrisku xataa waa dhibaa, amase wixii ay akhriyeen ma xusuusan karaan hadiiba. waa dhibaa, waa in hadba kusoo celiyaan. marka inta anigu akhri lahaa waxaa meesha instructionkaas iyo qaadadaas raac intaan dhihi lahaa, iyagan weydiiyaa inay akhriyaan. markaas waxay sii haydaa cognitive levelkooda iyo sida ay maaragtay maskaxdeeda u function garayhayda iyo memorygooda waxaasoo dhanaa. marka aan ku tijaabinaya. so are you ready? Yes. hadda saa ujeedin, can you zoom in? You can see it from there. hadda saa ujeedin boolkaasaa socda, kor u aadayaa, hoos u aadaya. indhaheedu waa kan, waa fiirinaya sida indhaheedu la soconayaan. boolkaas waa midii aan gacanta ka sameeyeyna oo computerized ah. kor u aadaa, hoos u aadaa, geesuhu ku soconaya. halkaanaan kala soconaya waxa socdo dhan, computerkan kala dhex soconayaan. idiin soo jeediya wax yar. waa kan indhaheedii sida ay boolka ula socdaan. hadda kan wuu dhamaada, next yuu leeyahay midka ku xiga. Asha, can you read? Yes. A target will move from right to left, left to right. Follow the dot. You will need to move your head. Move your head smoothly and let your eye follow the target. raaciduu siinayaa siday u raaci lahayd iyo madaxa ula raaci lahayd. You ready? Yes. so inta badan hadda waa diyaaranahay. so ay tiri lanayada concussion waxaa ma qabtay. inta badan waxay ku leeyihin oo isug wax yar sugaan mar kala akhriya, inaysa hilmaaminay ka baqayan.
hadda kii hore tartiibu u socday, dhaqdhaqaaqa ishu tartiibu la socday, kan wuu jaam garaynaya, xaggu ka muuqanaya saad ka arkaydeen se madaxa ula raacraacaydo, xaggu meel kaleu ka tusaaya, iyadu wax kale ujeedaa, macnaha midkaan annaga hadda ujeedna, iyadu wax mid ka shaabsanay ujeedaa oo maaragta hadba meel u jaam garaynaya, laakiin waa qeybta annagana qeybtaanu naga tusaa, iyadana qeyb kaleu ka tusaa. marka how quick ay u raacraaci kartaa qofka moderate to severe waxaa la yihahda concussionka dareen qaba ma raacraaci karo, uu ku wareeraa, ma iga siiba kuleeya okiyaalaha, ama haddii ilaahay kuu roon yahay meeshii boolka markuu xagga aada meel kalea qofkii fiirinaya, waxaasoo dhan anigu intaan kala soconayo. The third one we're not gonna finish isagoo dhan ma wada finish garahayna, laakiin dhowr xabaan rabaa inaan idinka tuso. Asha, can you read the instructions? Target will move up and down, follow the dot. You will need to move your head. Move your head smoothly and let your eye follow the target. Are you ready? Yes. So kii hore wa jaam gareeha carrada dhankan up and down bisu soconaya, so waxaa la fiiraa inay awooddaas indhahu ay leeyihiin, so inay saan qof ku dhihi karo, waxaasaa la fiirinaya inay awooddaas indhaheedu ay leeyihiin. qofka concussionka qaba ama head injuryga qaba madaxa jugu ka soo gaartay, indhahiisu sidaa ma samayn karaan. waa arkaydin soomaan boolka si u boodboodiyo kor iyo hoose u socota. intana wuxuu naga tusaa percentageka u dhiman. hadhow softwarekan wuxuu noo generate gareeha report dhan, meesha ku liidatay, meesha wax ka jiraan, functionkii loogu talagalay, what percentage uu qofkan indhihiisu aysa shaqeeyeen, waxaasoo dhan una tusaya. We're gonna finish with this one, okay? Do not move your head during the test. A target will float around the screen. Follow the dot using your eye only. You ready? Mm-hmm. hadda wuxuu u sheegay madaxaaga ha nuuxnuuxin, indhaha bis kala soco. awalkii hore maca madaxa nuuxeeda kan indhaha bis. dib u socdaa, indhaha bisa lagala soconay. marka normal anigu waxaan soo qaataa nowdan soo qaataa, meelahaan ujeedo weakness inay ka jiraan iyo wixii aan arkay, ilan report aan qorayaa, oo reportkaas oo waxa waaye family doctorkiisi qofkan loo diraayo, ama neurologist loo diraayo, ama hadduu shil oo kale soo galay companygii maaragtay shilka uu insurancega uga jira loo diraayo, ama shaqadii loo diraayo, warqad loo diraayo, waxaa ku arkay si aan u qoro nowd yaraan soo qaataa, kadibna reportkan computerku ii generate garaya, aan analyze garaya, inta meel la fadhiisto waxaasaan isu geegeeyaa report macnaha fiican, markaasaan ka generate garaya qofkan balaankiisu waxa uu yahay iyo meesha loo diri lahaa ku saabsan. Thanks Asha, we're gonna stop here. halkaan ku joojayna just example aan ugu soo qaaday inaan idin tuso dadka madaxa jugta ka soo gaartay ama concussionka iyo qaba, oo head injuryga qaba, guriga ku dhici karaa, jug qof u geystay, madaxa wax looga dhiftay, dagaal iyo waxaasoo kale ay ku dhici kartaa, shilal. inta badan meeshan waxaa noogu yimaado concussionkaas qaba waa dad shilal soo galay oo baabuur shil la soo galay. marka testiyadaas kala duwanaan sameynaa, waxaana weli idin soo tusin midkii balansiga oo isaguna jira oo tijaabino. waxaa jirta mid kaloo oo cerebellar test la yihahdaa jirta oo kale. Actually we're gonna do one more. So this one, you're gonna do this, you're gonna touch your finger with this B and then with your nose as fast as you can. I can hold it for you. For the left. Cerebellar test ayaan leedahay isagana. marmarka qaar waxaa dhacda qayb maskaxda kamid ah wey cerebellar, dadka haddii damage jiraan, intuu qofku uu sidan hugta u dhihi lahaa wuxuu leeyahay uu la agmaro maraya, ma toosi karo. marka isaguna waa testiya mid kamid aan ku sameyno wey. halkaasuu noogu egya video. waa ku mahadsantihiin daawashadiina. wixii commentiga iyo na-adinka iyo wixii aad rabtiin oo kale inaan soo daayo, rabtiin inaad ka ogaatiin concussionka iyo head injuryga iyo waxyaalahaas, inaan more details dad rabtiin, commentiga waa iigu soo qori kartiin. haddii ilaahay kuu roon yahay dhakhtara noocee ah la dhiilgareeya, haddii meesha aad joogto vestibular ama concussion qof oo specialist ah oo yaqaana uusan joogin, waa qolada ku xigto loo tagaa haddii calaamadahaas ay jiraan. marka
tariimada noocaana xaggaa laga soo qaataa, meeqa sana ay qaadataa inuu qofku barto waxaan inuu test gareeyo oo maaragta uu certify u noqdo, laysin iyo shati uu haysto. waxyaalahaasoo dhan su-aal haddaad ka qabtiin commentiga iigu soo reebi kartiin, iyo fiidiyoyada kaloo aad rabtiin inaan maaragtay aan soo tegiyo caafimaadka la xiriira. inta badan channeladeeda waxaan uga hadlaa waxyaalaha caafimaadka la xiriira iyo waxyaalaha iskuulaadka iyo jaamacadaha iyo la xiriira iyo career planningka iyo sidaa loo choose gareeya waxa aad rabto inaad barato iyo waxyaalahaasoo dhan information badan aan maaragtay aan ka diyaariyey. qaarna aanan weli diyaarin oo listiga iigu jirin aan ka diyaariyo, qaarna ay diyaarsan yihiin. waxyaalahan wadda aan ka shaqeeya imise sana igu qaadatay inaan barto. video aa jiri doona introductiona. anigu waxbarashadeyda 99% la dhihi karaa waxaan ku qaatay dalka Canada ku wada qaatay 2 sano ugu dambeeyay, xataa dugsiga sare Canada ku qaatay, 2 jaamacadood heerka koobaad iyo heerkii labaad waxa dhan dalka Canada ku qaatay. marka qaybahan waa qayb kamid ah ee waxyaalaha aan bartay oo maaragtay laysinkayga caafimaadkon haystana qayb waxyaala ku jira waaye. marka informationadaas iyo waxa la xiriira iyo qofka hadda raba inuu jaamacad bilaabo, qofka waxyaalahaas raba inuu barto different sectorka jirto caafimaadka oo laga baran karo, waxaasoo dhan fiidiyo badan oo ku saabsan soo bandhigi doonaa. idinkuna commentiga igula wadaaga waxaad rabtiin inaan idiin soo daayo. Thank you.